heshiiskan waa heshiis sahmin ay ku samaynayso Spectrum dhul baaxadiisu yahay 28 kilomitir oo inta badan ay leedahay dhulkii ay Shell oo u lahayd concessionka ama heshiiska u lahayd dhulkaas oo ku teedsan xeebta Soomaaliya ay ka samaynaysaa baaris dhulkaas sida aan rajaynayno waxa la filayaa inuu ku jiro kheyraad badan si marka kheyraadka ku jiro oo tuhunka ah aan ugu badda macluumaad dhab ah ay samayn doontaa sahanka markay dhamaato kadib macluumaadku wuxuu ku soo wareegayaa dawladda Soomaaliya qarashka lagu sameeyo sahminta waxa bixinaya Spectrum data markay dhamaysan wuxuu ku soo wareejinaysaa dawladda Soomaaliya sida aad sheegtay heshiiskan waxa hore u haystay Shell marka sidee shirkad kale loo siinayaa iyadoo shirkad hore heshiis ah uu jiray maya arrinta labay kala tahay Shell waxa ay haysato waa concession dhul ayay haysataa shirkadan Shell ayaa raali ka ah Shell waxay rabtaa inay u samayso basa Shell iyo annaga iyo cidii kale oo rabta badda Soomaaliya inay ka faa'iideyso kheyraadkeeda sahmin ay u samaynaysaa oo u sheegayso macluumaadka ku jira waa nooca shidaalka ku jira waa nooca ganacsigiisu waa nooca inta bay u sheegaysaa mooyaane shirkadan wax kale oo gooni ay leedahay male laakiin heshiiskii Shell aan la galnay oo 1980 oo dawladdii ugu dambeysay ay siisay sidiisa ayuu taagan wax iska bedelayna male xagee uu ka bilowdaa dhulkan xagees ku dhamaadaa qiyaas ahaan wuxuu ka bilowdaa Garacad wuxuu ku dhamaadaa Ras Kamboni heshiiskani intaan maanta la saxiixin muddo intee leeg ayaad ka shaqaynaysay runtii muddo dheer aan ka soo shaqaynaynay oo hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliyeed gudaheeda ha noqoto iyo international partnerska ama saaxiibada aan leenahay ha noqoto waxaan runtii aan u mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda guddiga la yiraahdo guddiga FGC ama Financial Governance Committee-ga sidoo kale waxa aad tala nooga siiyay Deloitte iyo hay'ado kale oo waddanka gudihiisa iyo runtii shaqaalaha wasaaradda oo muujiyay dhabar adeeg inay soo diyaariyaan heshiis noocan ah shirkadan Spectrum maxaad nooga sheegi kartaa iyada runtii waa shirkad samaysa sahminta oo kaliya inta badan waxay xafiisyo ku leedahay Mareykanka waxay ku leedahay Europe Singapore wadamo badan waana wadamada marka macluumaadka 2D laga hadlaya ama waa library-ga ugu weyn ama maktabada ugu weyn library-ga oo hay'adda haysata waa waxaan ognahay in doodii ka taagneed shirkadda Soma Oil and Gas oo horey heshiis la gasheen in musuqmaasuq lagu eedeeyay oo baaritaan socdo ee dalka Britain heshiisyada noocan aad galaysan wasiir soo markastaba noqonayaan kuwa la daba socdo oo muranadooda iyo doodahooda ay socdaan runtii sida maanta goobta laga cadeeyay oo ay wasaaradda maaliyadda cadeysay oo wasaaradda maaliyadda cadeysay oo prime minister-ka uu fadhiyay waxa ka soo shaqeeyay dhammaan hay'adihii ay qusaysay arrintan sidoo kale macnaha munaasabada lagu saxiixay waxa fadhiyay dhammaan hay'adihii qusaysay dawladda soo marka ma aha heshiis meel qarsoodi lagu qoray maaha meel aan cadeyn maaha marka hadii la yiraahdo maanta aan dhameeyna kadib waxaan geenaynaa golaha wasiirada si ay u ansixiyaan soo markii horena intaanan halkan keenin waxaan aad uga tashanay sida daaytu idin sheegnay Financial Governance Committee-ga oo nagu raacay inuu yahay heshiis ka turjumaya u daneynaya dadka Soomaaliyeed maamul goboleedyada waa soo qaaday markii aad hadlaysay waxa jira waa loo baahan yahay inay qayb ka noqdaan hanaankan waxana muuqata in isfaham waa u dhaxeeyo dawladda iyo qaar kamid ah maamul goboleedyada marka arrintaasi soo saameyn kuma keenaysa heshiiskan runtii waxaan ku dadaalayna waxay tahay in isfaham dhaxmara dadka Soomaaliyeed ma aha kaliya maamul goboleedyada dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin siyaasad midaysan inay ka sameystaan shidaalka iyo qaabka looga faa'iideysan karo rabitaanka dadka anagoo taas ka duulayna waa run caqabadaha imaanaya waa ku feena waa dhaceena sida waddanka uu soo bedelayo federaalka waa dala dhaceena laakiin marka ugu dambayso waxa naga go'an inaan sameysano heshiis ku meel gaar ah oo noo sheegaya qaabka aan kheyraadka u qaybsanayno hadii la yiraahdana hadii inta ay sidoo kale waxaan rajaynaynaa in dastuurka uu cadeeyo qaabka loo wada yeelanayo loo maamulayo marka ay dhamaato diiwaangelinta dastuurka ugu dambeyntii Spectrum gormay bilaabaysaa sahankeeda badda ee Soomaaliya runtii waxa ka go'an sida ugu dhaqsaha badan inay bilowdo sababtoo xilliga maansuunka daraadiis waxay jecel yihiin sida ugu dhaqsaha badan inay ku bilaabaan